waa arrin naxdin leh oo laga murugoodo 1440 dhowr sano kadib in nin yahuudi oo magaalada madiino isku soo sawiray kana muuqday in dowladda sacuudiga u ogolaatay inay beero ka samaystaan hantina ka samaystaan dhulkana gataan waa magaaladii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu ku duugan yahay madiinatu rasuulillaah uuna ka ceyriyey saddexdii qabiil ee yahuudda banu nadiir banu qurayda banu qaynuqaac maanta isagoo ku faanay maanta waxaa inoo mahad ilowya inaa walaalaheen sacuudiga iyo carabta mamlakada carabiya sacuudiya inaa hananay inaa madiino kusoo laabano 1400 sano ka bacdi ayuu leeyahay taasna waxay arrin jab ku tahay muslimiinta iyo manhajka islaamka iyo magaaladii nebiga sallallahu alayhi wasallam islaamka uu ka kacay in maanta yahuud dib loogu rabo in loogu beero oo maxay samayn doonaan oo ku xigto waa fasaad weyn oo u baahan in ummadda laga qabto ilaahayna subxaanahu watacaala arrintooda ummadka falastiin bay baabi'iyeen ay cuneen oo 76 sano ay dadkeeda xasuuqayaan maanta markay manbici islaamka jasiira alcarabiya meeshii uu ka ceeyay nabiga waliba uu dhahay akhrijul yahuud wa nasaara min jasiirati alcarab markuu nabiga madiina ka saaray oo khaybar haddana uu kasii saaray cumar baa sii dhammaystiray jasiira carabiya ka saaray markuu falastiin ee muslimiinta la wareegeen baytulmaqdis 16 hijriyada cumar warqadu qor waxaa ka mid ahayd laa yusmax asakan lilyahuud lama ogolaan karayo yahuudda inay degaan falastiin dhexdeeda marka gaaladii soo islaamtay nasaaradii lagala wareegay intaba waxaa loo ogolaaday inay jisiya bixiyaan muslimiinta la noolaadaan laakiin cumar wuxuu u diiday hal qof oo yahuudiya kuma dhex arki karo yiri shaam waa la ceeray yurub bay gudaha u galeen maanta marka waa murug iyo masiibo ummadda muslimka u socota nin yahuudiya inuu isku soo sawiro madiina munawwara gudaheeda asagoo ku faanaya inuu timir ka beeray waxay hato una mahad celinayo dowladda sacuudiga carabiga aasif jiddan ilaahay subxaana wa tacaala ka qabto ummadda wallahu aclam